waxbartaan 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 barwaaqo gaarne waxbartaan 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 barwaaqo gaarne. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada janaalka Ustaad Saciid Training. Waxaynu guda geli doonaa xalqadii 27aad ee casharadii inoo soo socday. qaybtan waxaynu ku baran doonaa sida loo diyaariyo qormooyinka ama qoraalada oo loogu bedelo gold oo kale iyo silver, sida looga dhigo. qoraal baa qoraysaa, qoraalka marka kalarka aragtid iyo nooca aragtid si aad uga dhigtid. marka qaybta u korayso kale waa aragtaa gold oo ku qoran tahay, dahab inuu egtaa, qayb silver ku qoran tahay inay silver u egtaa. qoraalka marka halkaa yaalla baynu diyaarinaynaa mid lamid ah, waynu guda gelaynaa. page cusub baynu soo furaynaa, waxba halkaa ka bedeli mayno, waynu guda gelaynaa. halkaa markaan joogno waxaynu soo qaadanaynaa qoraalkaynu soo qaadanaynaa, halkaas baynu la imanaynaa. waxaynu qori doonaa goldi baynu qoraynaa. markaynu qorno hoos baan usoo dhigaynaa, hoos baan usoo dhigaynaa. intaa kadib waxaynu dul tegaynaa qaybtan layerka, right click baan leenahay, blend option baan dooranaynaa. blend option markaan doorano waxaan ka dooranaynaa color overlay baan ka dooranaynaa. halkaas baynu sii dooranaynaa colorka. qaybtaas huruudda baynu dooranaynaa, kadib okay baan leenahay. intaa kadib waxaynu tegi doonaa halkaan bevel inbox ku qoran tahay, baynu tick saaraynaa bevel. marka automatically waxaa isbedelay fartii halkan taalay, dahab bay isu bedeshay ama gold. marka sababtana waxa weeye markii hore practical sameynayay baan ku diyaariyey. qaybtan waxaa ka dhiganaysaa inner bevel, waa la soconaysaan. qaybtanna waxaa ka dhiganaysaa bezel head baa ka dhiganaysaa. qaybtan dhiidka ma garanaysaa, iyada 150 180 baa ka dhiganaysaa. waa gidaarka halkan ku jira, wareega dhexda ka muuqda weye, macnihii inta hadba leekaysiisanaysid. qaybtan aa ujeedaan waa sayska haddaan tusiyo wuu kala furmayaa, waa aragtaa, marna wuu isku xirmayaa, somaaragti. yani saa doontaa ka dhiganaysa, marna wuu kala furmayaa, marna wuu isku xirmayaa. marka sidaa weye asaga 100 haddaa ka dhigatid iyo waa isku mid. marka qaybtan waxaa ka dhiganaysaa 90 baa ka dhigaysaa, qaybtan 30 baa ka dhiganaysaa angalka. qaybtan waxaa ka dhiganaysaa ringing double baa lahaa. iyada laftigeeda macnuu waa gidaaradan isdul saaran, qaybba waxbay ka qayb qaadanaysaa. halkan normal bay taa ujeedaan, halkan waxay tahay shadowga, waxay tahay qaybta ugu hooseysa. marka haddaan kalarro kale ka dhigo macni si kale noqonaysaa, waa kaa ujeedaan, si kale noqonaysaa. marka qaybtaasaa ugu qurux badan oo ii dooran. marka macni halkan oo kale opacity-ga labada dhinacba waa 75. kadib okay baan leenahay. waxaan intaa ku daraynaa qaybta silverka. marka ma jiro wax weyn oo farqiga u dhexeeya. kan baan oranaynaa control J baan oranaynaa, kadib waa soo jeedinaa, yani size kasta aan uga qaadana. kadib waxaan u bedelaynaa silver baan qoranaa.
qaybtan marka silver baa la rabaa in laga dhigo silver baa la rabaa in laga dhigo isla meeshan baa tegaynaa layerka right click baan leenahay blend option baa tegaynaa keliya waxaa bedelitaan u baahan kalarkeenu waxaan ka dhigaynaa silver ama qalin halkaasaan ka dooranay markaan doorano imbal horta okay baan leenahay waxaan tegaynaa bevel inbox awal bay tig saarnayd marka asagana waa isla sidii waxba intii awaleynu soo sharaxnay baa ka dhiganaysa waa kaas qoraalka silver buu isu bedelay oo ujeedaan marka waa ujeedaan halkan marka dhexda qoraal yar baan ku darsanaynaa qaybtan waa la bedelayaa 250 waxaan ka dhigaynaa konton kadib waxaan qoraynaa channelka magaciisa oo ah cidda warbixinta soo gudbinaysa halkaas 80 baan ka dhigayaa saasaan gartay select baan leeyahay dhexdaan ku aadinayaa control D baan leeyahay ayadana waxaan ka dhigi doonaa gold baan ka dhigayaa gold isla processkun baan maraynaa halkan waxaan ka dhigaynaa jaalle ama hurud kadib bevel baan tegayaa hadda qoraalkii dhammaan waa uu dhammaystiran yahay waxaa inoo dhiman oo keliya backgroundka waxaan malaynayaa madowgaa ka qurux badan marka xoogaa backgroundka waa bedelaynaa madowgaynu ka dhigaynaa madowga u malaynayna ka qurux badan yahay madow baan ka dhigaynaa okay hadda qoraalkii saas ku dhammaystiran yahay sida la soo xirayana waxa weeye alt control A baan leenahay kadibna control E baan oranaynaa isku xiran saas isku xiran yahay marka saas qaybtan ku diyaarsan tahay sida loo save gareeyana waa garanaysaan halkaas aan ku joojinaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.